Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our YouTube channel Osman Puncher for studying the English language. walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena Osman Puncher ee aad ka baranaysaan luqadda Englishka. waxaan rabaa halka kale inaan ugu mahadceliyo ardayda qiimaha badan oo conversationka nala sameysay fiidnimadii sabtida sida wacan ee xushmada ku dheehan tahayna u sameysay. ardaydaas oo kala mid ahaa qaar waqtiga uu siiyay inay sameeyaan conversationka iyo qaar aanan u suurtagelin balse qaab marti ah ay noola joogeen. qaar ka sameeyay conversationka waxay kala yihiin xasan jaamac yaasiin, bishaaro cabdiraxiim sheekh cali, saacid moxamed cali, leyla moxamed mahad, moxamed cabdideeq cilmi, yurub moxamed bare, cabdullaahi cabdirasaaq mucallim. intaas oo arday waxay nagala qayb qaateen dhanka conversationka. xagga isbeelinkana waxaa sidoo kale ku jiray oo nagala qayb qaatay oo aan ku daraynaa fardowsa xasan mucallim iyo maariya xirsi jaamac. waxaan leeyahay dhammaan ardayda ka qayb qaadatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. sidoo kale waxaa marti inoo ahaa guuleed xasan garaad iyo faatima moxamed daahir oo ayada in badan ka qayb qaadanaysay conversationka, hase yeeshee mashquul ay ku jirta awgii oo u suurtageli waayo. marka dhammaan ardaydan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin waqtigiina iyo qaabka aad wada sheekaysiga u sameyseen. okay, intaa kadib maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeenii 47 waxaana ku baranaynaa how to say goodbye to everyone. how to say goodbye to everyone. sida aad qof waliba u macsalaameynaysid ayaan cashirkeenii maanta ku qaadanaynaa erayada macsalaamada ah oo aad qofka marka aad wada sheekaysiga dhammaysaan aad ku kala tegaysaan. waxaan rabaa hore waxaan usoo aragnay greetingski, short conversations aan soo qaadanay. haddana markii aad qofka kala tegaysaan oo aad macsalaameynaysid qaabka aad u kala tegaysaan oo aad u macsalaameynaysid inaan in yar ka barano. waxaan soo qaadanaynaa 3 jumladood oo macsalaamo ah, kadibna waxaan qaadanaynaa 4 jumladood oo macsalaamo ah, haddana waxaan sii qaadanaynaa 3 jumladood oo kale macsalaamo ah oo kala heer ah. macsalaamada caadiga ah oo ma laysku sagootiyo ama laysku macsalaameeyo waxaa caan ah 3dan oo kale ah goodbye oo ah nabadgelyo, good oo calaamadaas yar oo riigada ah ay dhexdaaga jirto oo u taagan, calaamadaas waxaa la yiraahdaa hyphen ama dash ayaa la yiraahdaa. hyphen ama dash ayaa la yiraahdaa. hyphen markay qoraaltaas sidaan ay qoran tahay, dash markay qoraaltaan ayadana sidaan ay qoran tahay. marka calaamadaas waa hyphen, good waa fiican, hyphen bye oo ah iyadana macsalaamo. marka goodbye macsalaamo ayaad leedahay ama nabadgelyo, adiga oo aad qofku marka ugu dambeeyo wada sheekaysigiina uu dhammaado aad ku macsalaameynaysid. wada sheekaysigaas oo noqon karo mid aad barta social mediaha aad ku sheekaysanaysaan ama mid aad live u sheekaysanaysaanba. okay, waxaa kaleento u isticmaali kartaa macsalaamada oo ah bye kaligeed. bye kaligeed waa dhihi kartaa oo ah nabadgelyo, ama waxaad dhihi kartaa bye 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 calaamada hyphenta kadibna bye. okay, goodbye nabadgelyo, bye macsalaamo, bye bye nabadino. intoodaba macnaha af Soomaaliga macsalaamo lay u taagan tahay.
okay goodbye مع السلامة bye nabadgelyo bye bye nabadino laakiin sida officialka ah waxaa aad loo isticmaalaa goodbye iyo bye ayaa aad loo isticmaalaa oo ah nabadgelyo marka bye markaad qoraysid waa b y e ayaa u dambeyso marka goodbye مع السلامة bye nabadgelyo bye bye nabadino intaas waa midda officialka ah ama dadka caadiga inta badan ay isku macsalaameeyaan okay waxaan kale intoo rabnaa inaan soo qaadano afar kale oo kale ah see you oo ah markaad qofka ugu dambeeyo aad isku macsalaameynaysaa see you oo ah nabadgelyo see you oo ah nabadgelyo ama see you waxaad u isticmaali kartaa kulanti wacan qofku waa wada sheekaysateen see you kulanti wacan ama waxaad dhihi kartaa isla tan oo kale adoo adeegsanayo nice to see you kulan wanaagsan oo u taagan marka bye oo kale u taagan tahay qofka hadduu aad wada sheekaysanaysaan ama luqadda Englishka aad ku hadlaysaan see you hadduu ku dhaho u faham inuu wada sheekaysiga rabo inuu soo gabagabeeyo waa inaad fahamtaa hadduu ku dhaho see you ciao ayuu u taagan tahay ama bye nabadgelyo kelmadda ciao ayaa hadda afkeena soo qaatay inta badan Soomaalidana waa isticmaalaan horta ciao waxay u qoran tahay waa c i a o ciao waa af Talyaani laakiin ciao Englishkan waa loo isticmaalaa af Soomaali ahaan oo isticmaalaa qofka ciao marka dhis mac salaama okay see you waa kulanti wacan oo ah markaad qofku mac salaameynaysa aad isticmaalaysaa ama waxaad dhihi kartaa see you soon okay see you soon kulanti dambe oo dhow ama kulanti wacan oo dhow macnaha soon kelmadaas hadda soo qaadano soon waa macnaha dhaqsi soon waa dhaqsi markii lagu dhamarka see you soon kulanti wacan oo dhow kulanti wacan oo dhow macnaha qofka ugu dambeyn uu ku macsalaameey raba see you soon kulanti dambe oo dhow macnaha ay u taagan tahay kulanti dambe oo dhow ayaan kulmi doonaa ama beritaad kulmi doontiin ama beri dambaad kulmi doontiin waay marka isla jumlad kala jirta oo ah see you later horta kelmadan later oo ah goor dambe waaye later waa goor dambe tusaalaan later American wuxuu ugu dhawaaqaa later ayuu ugu dhawaaqaa halka t-da oo Britishka t ugu dhawaaqayo asaga wuxuu ugu dhawaaqayaa Mareykanka d oo khafiif ah wuxuu leeyahay later see you later oo leeyahay marka halka Britishka ay dhahayaan see you later oo ah is aragti dambe laakiin see you soon marka lagu dhaho is aragti dambe oo dhow weeyaan waxay ka sii dhowdahay later soon waa dhaqsi later-na waa dhow soon waa dhaqsi later-na waa goor dambe marka see you later is aragti dambe see you soon is aragti dhow ayaa leedahay ama is aragti dambe oo dhaqsi ah macnaha soonta ayaa ka sii dhow later intaas u faham ama waxaa lagu dhihi karaa see you intaas waa lagu baneynaa waxaa aragtidaad gashan kartaa waxaa dhihi kartaa see you tomorrow beritaan is arki doonaa tomorrow waa berito waa tomorrow tomorrow waa berito marka see you tomorrow berita inoo balan awiyaan see you tomorrow berita inoo balana marka ama waxaad dhihi kartaa see you on Friday jumcada inoo balana maalmaha markaad sheegaysid on ayaad ka hormarinaysaa see you on Friday jumcada inoo balana marka see you next week waad dhihi kartaa asbuuca xiga inoo balana see you next week asbuuca xiga inoo balana tusaalaan anaga isbuuci hal mar wada sheekaysiga sameynaa marka waxaad dhihi kartaa okay thank you very much or thanks for your conversation ood ku maasantaa wada sheekaysigaaga see you next week okay waxaa inoo balana asbuuca xiga see you waxaa kulmi doonaa ama aan is arki doonaa next week asbuuca xiga marka see you next week waxaan kulmi doonaa asbuuca xiga waay ama see you tomorrow berita inoo balana see you on Friday jumcada inoo balana
okay, see you on Friday. jimcada inoo balana marka intaan oo dhan waxaad u isticmaali kartaa marka mac salaameynta afartan hadda aan nii sharaxay waxa weeyaan see you oo ah nabadgelyo see you soon is aragti dhow ama is aragti dambo dhow ama see you later kulanti dambe see you tomorrow berita inoo balana ama see you next week asbuuc xiga inoo balana intaas waa fahamnay waxaa kale inta kale jira saddex jumladood oo kale oo kale ah qofka marka mac salaameynayso waxaa dhihi kartaa cheese waxaa dhaho cheese British ka dhaho waa CHEERS cheese oo ah mac salaamo inta badan social media markii la isticmaalayo kelmadan la isticmaalaa cheese ama Mareykankan wuxuu ugu dhawaaqaa cheers arto soo geliya oo meel dheer ah Britishkan wuxuu yiraahdaa ama British accentiga wuxuu yiraahdaa lahjadoodana cheese ayuu yiraahdaa cheese ayuu yiraahdaa marka kelmadan cheese ah macno kalena way leedahay macnahaas oo kale oo ah markii wax la cabayo kale gaalada ay sharaabayso oo kale markay bakeeriyada isku dhufsanaa waxay yiraahdaan cheese oo ah aan ku damaashaadna camle markaas u taagan tahay cheese oo ah marka aan macnaha aan isla caweyn oo kale waxay isku dhufsadaan bakeeriyada waxay dhahaan cheese marka cheese laba macno leedahay macno waxa weeye markaas ay sharaabayaan ay bakeeriyada isku dhufsanayaan oo u isticmaalaan waxay kale inta loo isticmaalaa cheese markii la ismac salaameynaayo cheese nabadgelyo okay ama cheers aad ugu dhawaaqi kartaa erayga kale ama jumlada kale aan soo qaadin waxa weeyaan take care oo ah marka qofka ugu dambeyn ama salaameynaysid oo dhehaysid take care waxa weeyaa macnaha nabadgelyo take care waa nabadgelyo take care haddaan kala qaadno take waa qaadasho care waa ka taxadirid care waa ka taxadirid take care iska taxadar waa marka qofku mac salaameynaysid sida waalidkoo kale maxay ku dhahan iska taxadar saas sameey sidaan sameey marka way kula dardaarmay marka dambe aad bixaysid okay markuu saaxiibkaa bixi rabana waxaa dhihi kartaa hey my friend take care iska taxadar oo ah ciao ama bye ayuu taagan tahay okay waxaa kale intuu mac salaamada loo isticmaalaa xilliga habeenkii markay tahay waaye good night habeen wanaagsan good night habeen wanaagsan night waa habeen good waa fiican good night habeen wanaagsan marka good night salaan ma noqoto qofka markaad habeenkii iskula kulantaan good night ma dhehaysid xitaa Soomaalidana waa isticmaalaa qofaad Facebooka ama Messengerka meel ku arkaysaa habeen wanaagsan aad u qoraysaa adigoo salaan ka wadid no markaad habeen wanaagsan qofka dhehaysid waa marka ugu dambeyn ama salaamay rabtid waay laakiin markii aad rabtid qofku inaad macnaha feed wanaagsan waa dhihi kartaa salaamay kamid tahay oo hore greetingska aan soo qaadanay waxaa dhihi kartaa good morning good afternoon good evening marka laakiin good night waxaad u isticmaalaysaa habeen wanaagsan marka ugu dambeysa qofka ay habeentoo kala tagaysaan ayaad u isticmaalaysaa that means waxa adigana waad jiifan doontaa asagana jiifkiisu doonan doonaa weeyaan marka habeenkii waa mac salaameyntaas waa marka good night okay habeen wanaagsan waxaan aragnay cheese oo ah marka mac salaamo take care oo ah iska taxadar good night oo ah habeen wanaagsan marka waxaan maanta baranay cashirkeeni 47 waxaan ku baranay 10 jumladood oo aad mac salaamo qofka ku dhihi kartid marka waxaan idin leeyahay aniga oo ah teacher Osman Abdulkadir Pancher channelka hadaad ku cusub tahay subscribe oo soo cashir walba oo aniga aan halka kani kasoo gudbinayn oo ku soo gaaro adiguna u sii share garay asxaabta jecel barashada luqadda Englishka inta aanan meel fog sii gaarin insha Allah waxaan idin leeyahay aniga oo ah teacher Osman Abdulkadir Pancher markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.